wadaad kan la yiraahdo Macallin Maxamuud يقول يعني أهل السنة الشيخ هو أهل السنة والجماعة لينا قول هذا ده واحد كه لسان محواه سوشيال ميديا وكذا طيب حرتي سيبوا قصانا يا قصوا شيء قصة اللي يابلو عليه واحد شربه يري واحد شري الشيخ اللي هذا سلمان مجلس اللي وهو أولي سمض فوله وطوله هاجر markuu dhaqaaqayo duulida bilaabay wuxuu dhihi jiray ya Xanaan ya Xanaan ya Xanaan markaasuu ku duul dhaqaaqi jiray marka sida diyaar wuxuu ahay raawaygeeda ku kacayso ya Xanaan markaasuu kacay khadimkiisi ama nin muriidkiisa ah ayaa wuxuu ku yiri sheekhow inaan ku raacaan raba inaan kula duulaan raba markaasuu sheekhi wuxuu ku yiri qalbigaagu waa daciif inaad raacda ma kari kartid iska joog muriidkii waa ku adkaystay ma sheekh inaan ku raacaan raba markuu ka celin waayo ku adkaystay ayuu wuxuu ku yiri dayib inaad raacda salaamad rabtaan Soomaha markaan dhaqaaqo anigu aan dhaqaaqayo duulida bilaabay waxaan dhihi ya Xanaan ya Xanaan ya Xanaan aduguna waxaad tiraahdaa ya Salmaan ya Salmaan ya Salmaan kadibna isra ya duulida isra wadaadku muxuu leeyahay ya Xanaan muriidkuna muxuu leeyahay ya Salmaan waa magaciisa waa la dhaqaaqay wadaadkii wuxuu yiri ya Salmaan wuxuu yiri ya Xanaan waa dhaqaaqay muriidkiina ya Salmaan waa ka daba dhaqaaqay waa la wada duulay hawada sare mar la joogo oo halka kore la maray ayaa muriidkii waxa u yimid ibliis shaydaan baa u yimid markaas wuxuu ku yiri ayuha ar-rajulu kafarta billah shaydaan baa ku dhahay warniyahu ilaahi waad ku gaalowday niyadan maqlin waxa sheekaagu leeyahay oo muxuu yahay ya Xanaan buu leeyahay waana magac ilaahi magacyadiisa kamida aduguna magicii sheekaaga ku dhawaaqaysa soo gaalmatiid buu ku yaa ku dhahay shaydaan baa ku dhahay hawada sarana la maraya markaas wuxuu ku yiri war gaalnimaad ku dhacday yaa Salmaanka inta iska disay yaa Xanaan dhe muriidkii warkii uu qaatay markaas wuxuu bilaabay inuu yiraahdo yaa Xanaan tu yiri waa soo dhacay يا حنان هدو يليبا وصودا شيخي با قبتي وادجيي دولكو geey halka markuu sheekhu qisada marinayo ardadii isagiiba waa isla qosleen waa isla marqaam safartii iyo duulitaankii sheekhi ka soo noqay muriidkii baa weydiiyay wuxuu ku yiri sheekhow magacaaga markaan qabsadayna waan duulay magaca ilaahay markaan qabsadana waan soo dhaco waan duuli kari waay sawt maxay wuxuu ku yiri magaca ilaahay waxa ku duula ninkii ilaahay yaqaan aarif billah waa darajo dariiqooyin ku gaaraan wadaadada ninkii aarif billahi ba magaca ilaahay ku duuli kara aduguna aarif billahi ma tihido maadan gaadhin hadaadan ilaahay garanayninna anaad i garanaysay maadaama anigoo aarif aad i garanaysay baad magacayga ku duuli kartay ilaahay magaciisa kuma duuli kartid markaad magaci ilaahay intaad qabsatay kii sheekhaga aad meel iska dhigtay waadiga soo dhacay buu ku yiri waxa ka baantay war wixii munaaqibkii ku qornaa munaaqibkii Sheikh Abdul Qadir Jilani wixii ku qornaa مناقب أويس وحي كقرنا معه ووداد هذا الشوغا وأمد هرتشوغا وولي بقرية هايستا وإنت أصلا قراسة هدان ليسين النظام اسمي معي له وأهل السنة والجماعة وضيئوا صمارت إلهي بانكوغر داريه روح مسلم وجاهل بها هذا وعقيدتي أصلا كأو كل شيء هايستا ألف السادين حتى أبو برني
miyaa laga dhaadhicin karaa magaca ilaahayna kuma anfacayo ka sheekuna waa ku anfacaya ya miyaa laga dhaadhicin karaya marka waxa soo baxday ummadii dhib haysta ummadii qaar kamida dhib haysta waana arin u baahan in wax weyn laga qabto waa hal qiso laakiin qisooyinku way baday social media-na waad ka dhirgi kartaan waxa dhex yaalay noocaas oo miidhan